gordhow waxaa qarax uu ka dhacay saldhigga degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Qaraxa ayaa la tilmaamay in uu fuliyay ruux isku soo xiray waxyaabaha qarxaad kaasi oo gudaha u galay saldhigga degmada Waaberi ee gobolka Banaadir, halkaasi oo la tilmaamay in ay ka jirto khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. waxaa la tilmaamay in uu geeriyooday taliyihii saldhigga degmada Waaberi ee gobolka Banaadir Axmed Calooley. sidoo kale waxaa jira dhimasho iyo dhaawac soo gaartay askartii iyo weliba saraakiishii kale ee ku sugnaa gudaha saldhigga degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. sidaad ujeedaanba goobtu waxay u xiran tahay ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan booliiska oo aad u fara badan kuwaasi oo soo gaaray goobta islamarkaana xakameeyey dhaqdhaqaaqa halka qaraxa uu ka dhacay. xilliga qaraxa uu dhacayay ayaa waxaa goobtu ay ahayd agagaarka saldhigga degmada Waaberi, meel dadku ay si caadi ah ay u fadhiyeen islamarkaana ay ku shaaxayeen, balse qaraxa ayaa isagu waxa uu ka dhacay gudaha saldhigga degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. qalqal badan ayaa dadku soo wajahay kuwaasi oo dowladii bilaabay inay isaga cararaan goobihii ay ku sugnaayeen. waxaa albaabada la isugu dhiftay goobihii ganacsi iyo meheradihii ka furnaa waddada dhinaceeda. qaraxan ayaa dibtiisa waxaa laga maqlay inta badan caasimadda magaalada Muqdisho ama xaafadaha magaalada Muqdisho, iyadoo sida la arkayaba ay jiraan gaadiid ambalaasa kuwaasi oo ka soo baxaya halka qaraxa uu ka dhacay, islamarkaana la tilmaamay in ay wadaan dhaawacyo ay u sii sidaan isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho. goobtu aad bay u adag tahay inay gudaha u gasho saxaafadda, islamarkaana la helo xogaha rasmiga ah ee ku gadaaman qaraxani. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya iyadoo wararku ay soo tarayaan islamarkaana ay sheegayaan in ay jiraan dhimasho iyo dhaawac ka dhashay qarax. tirada rasmiga ah ee dadka ku waxyeeloobay qaraxan aan la xaqiijin karin. qaraxani ayaa wararku ay sheegayaan in uu jiro dhimasho soo gaartay taliyihii saldhigga degmada Waaberi ee gobolka Banaadir, inkastoo ilaa haatan tirada kale ee rasmiga ah ee aan la xaqiijin karin ku waxyeeloobay qaraxan. waxaana fuliyey sida wararku ay sheegayaan ruux isku soo xiray waxyaabaha qarxakaasi oo isku qarxiyey gudaha saldhigga degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. ciidamada u fara badan ayaa goobta soo gaaray kuwaasi oo xiray wadooyinka soo gala saldhigga, iyadoo isu socodkii gaadiidka iyo dadku intuba ay noqdeen kuwo hakad galay, islamarkaana aysan jirin wax gaadiid ah ama dadyow ah oo iyagu si rasmi u isticmaalaya halka saldhigga degmada Waaberi ama waddada hormarta. dadka ayaa iyagu loo diidaya, saxaafaddana looma ogola in ay gudaha u gasho halka qaraxa uu ka dhacay. waddada ayaa iyadu dadku waxa ay ku sugan yihiin hareeraha waddooyinka ayay ku sugan yihiin, iyagoo u dhegtaagaya hadallada ka soo baxaya halka qaraxa uu ka dhacay. dadka ayaa ku sugan dhinaca waddooyinka, waa dhinacyada waddada. gaarigaas waxa uu ku xiran yahay waddada, ma jirto si cid ka gudbi karta waddada.
وجوجا قابت قرحه وكدعي جديد كامبلاسكا يا يجو استعماليا wadada iyagoo si xawli u socda kuwaas oo la tilmaamay in ay wadaan dhaawacyo saas ayaa dhacaysa sida aad maqlaysaan صوصة أي لعبة أي ما كادينا وين من المنتجع أي أبو أي ما كذا أي مش قايسة هيا يا اخي راح تدوبه حتى هودك اللي هذا عمر أدوك اللي تجيب والله كان ذا حتى الله أقول لو بنقول كذا ملا هو أنا تذكر كذا بيسوي ويريد كذا جنبه كذا هذول وطن كان مجالنا كنا نقرأ نعرف أنا qaraxani ayaa waxa uu dhacay habeennimadii caawa waxaana la tilmaamay inuu ku geeriyooday taliyihii saldhigga degmada Waaberi ee gobolka Banaadir sidoo kale askari iyo ciidamo kale iyo sidoo kale saraakiil ayaa la tilmaamay dhimashadii dhaawac ay ka soo gaartay waxaa la sheegay in khasaare uu jiro ruux naftii suura ah oo waxyaabaha qaxar isku soo xiray ayaa la tilmaamay goobta isku qarxiyay ciidamo ayaa weli goobta ay u xiran tahay gaadiidka ambalaaska ilaa dhowr xabo ayaa goobta ka soo baxay goor mardhow ahayd kuwaas oo la tilmaamay inay sidaan dhaawacyo ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay saldhigga degmada Waaberi ee gobolka Banaadir Quanto
ciidamada u fara badan kuwa booliska Soomaaliya ayaa soo badbaadiyay goobta qaraxa ka dhacay Mission is over. Mission is over. boqolaal baa meydkii baa la kala gurayaa hadda tama ciidamadii balaasti baa meydkii la kala gurayaa igu soo yaaca anaa meesha jooga والله وأبوك جليس هذه تجربة كيف عايش خلانا وهاي هذا قبل كان هذا سوى waageerka saldhigga degmada Hawaabari ee gobolka Banaadir ciidamo ayaa wali ku sugan afaafka hore ee saldhigga waxa xaniban socodkii gaadiidka dadweynaha mooto nooca loo yaqaan bajaajta ayaa iyadu wadada taala يلا صغير يلا بس استنى خلينا على كواي ciidamada ammaanka ayaa iyagu wadada waxa ay ku xireen xarig dheer taasi oo u muuqata in meesha laga sameyn doono baaritaano dheeri ah maadaama ciidamada u fara badan booliska Soomaaliya goobta ay soo gaareen dhacdaduna ay ahayd dhacdo aad u xoog badan maadaama qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa sida la sheegay uu isku qarxiyay gudaha ama saldhigga degmada Hawaabari ee gobolka Banaadir xogo dheeraad ah oo intaasi ka baxsan lama heli karo sababtoo ah ciidamada u fara badan ayaa goobta ku sugan booliska Soomaaliya waxa ku dhintay taliyihii saldhigga booliska ee degmada Hawaabari iyo sidoo kale ciidamo kale waxaana wali sidoo kale la raadinayaa saraakiil kale naftooda ku dhintay wali ma qaraxan ayaa la sheegay in ay ku geeriyoodeen saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya سروالكو دوستو قورو لا ودكو سروالكا
ugu jiro waa waddankaada haddaa siibtid goormaa qori banag ma yaalaan asmay oga xaqigooda ma gaarsiisa meesha laga jiraba ma oga nin loo diiday hadda fiir caawa hadday soo galaan oromo anqaare waa isku egnaa mog yaa iskala dhuntabaa weligaa kama codeen weligaa kama aadan kaar ma qabtid waxaa goobta ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwaasi oo xaqiijinaya ammaanka isla markaana baaritaano dheeraad ah ku sameynaya xaaladda goobtii ay wax ka dhaceen saldhigga degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Laamaha amniga ayaa goobta soo buuxdaafiyey iyo sidoo kale ciidamada baaritaanada gaarka qaabilsan dadkii goobta ku go'doonsanaa ayaa iyagu haatan si haleela kaga soo baxaya. dadka goobta ka soo baxaya ayaa dad ku dhow ilaa 4 ruux ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen goobta sida dadka goobta ka soo baxaya ay sheegayaan. dadka goobta ka soo baxay ayaa sheegaya in ay jiraan dhaawacyo meedad iyagoo indhahooda ku arkeen taasi oo muujinaysa xaddiga uu la egyahay qaraxa goobta ka dhacay. ciidamada ammaanka ayay weli goobta u xiran tahay gaari
ambalaas ah ayaa goobta yaalla oo ciidamadu ay isticmaalaan. ciidamada ayaa iyagu waxa ay ka soo fulinayaan shacabka agagaarka goobta ku sugnaa. ciidamada ammaanka ayaa waxa ay ku amrayaan dadka in ay goobta ka fogaadaan. waa rasaas lagu kala ceerinayo dadkii goobta ku sugnaa oo ciidamadu ay isticmaalayaan. dadka ayaa iyagu dib uga laabanaya goobta markii ciidamada ammaanka ay rideen rasaas. saxaafadda ayaa iyadu goobta ku sugan. ka fogaadaan. saxaafadda ayaa lagu amrayaa in ay goobta ka fogaadaan. ciidamada ammaanka ayaa la hadlaya. ama jawiga goobta ay wax ka dhaceen dadkii ku xanibnaa agagaarka goobta ay wax ka dhaceen ayaa iyagu haatan fursad u helay in ay ka soo baxaan maadaama goobta ay isku jiraan markaan ay heleen ay ka tirsan kuwa booliska. xilli roobaad roobka xiran ayaa da'aya. سارة قبل هذا الموسم
wixii warar ah ee ku soo kordha qaraxan halkan ka dhacay iyo weliba saraakiisha ciidamada dowladda sida ay uga falceliyaan ama ay uga hadlaan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkayaga iyo weliba tabinteena tooska haddii Allah wada leh uu raali ka noqdo sida la sheegay qaraxani waxaa ku geeriyooday inta la xaqiijiyay ilaa haatan taliyihii saldhigga degmada waa bari ee gobolka Banaadir iyo weliba askar kale iyadoo la tilmaamay in tiro 4 ruux halkaas ay ku dhinteen sida wararku ay sheegayaan balse wararka oo dhameystiran waxay soo bixi doonaan saacadaha soo aadan iyadoo la filayo in saraakiisha ciidamadu ay ka hadlaan dhacdadii caawa ka dhacday saldhigga degmada waa bari ee gobolka Banaadir